waa telefishinka SNN oo aad kala socotaan magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul. maanta waxaan nasiib u yeeshay inaan wareysi kula yeesho khadka taleefanka wasiirka warfaafinta ee Jubbaland. wasiir kusoo dhawow taleefanka injineer Cabdi Xuseen. kusoo dhawow. inta waan ku dhawahay waan salaamaya dhammaan Minneapolis iyo wixii Mareykan digtiisa iyo adduunka mudane wasiir waxaad nooga warantaa xaaladda maanta ay Kismaayo ku jirto iyo doorashada halka ay arrimuhu marayaan. bismillaahi raxmaani raxiim. haddaan idinka warramo xaaladda magaalada Kismaayo caasimadda ku-meelgaarka Jubbaland, xaalad fiican bay ku jirtaa, xaalad doorashay ku jirtaa, waa nabadgelyo, wax dhibaato ah ma jiro. كلي والله بين السوشيال ميديا وحصل كم مقاشين لكن إذا كل شيء ومشى وشوي بكتيرة لابد بكتيرة قرحي هذا الليل كما يمكن حاليا أساسي وجود اللي واحدة وخدعي عندي بعتقد إنه دعاية وواسع إليه حافظ شيء اسمه لكن لو الدنيا كانوا عادي في عام تايدور شيء زي صوران حاضر الذي يوجد بالتان في برلمانكا ما كانوا حقوا في دارين طولي وحنا الدور الديني من الجاركها البروسيس كله صعانية سووا سيس بتشوفوا صعان دور كله waan gartay. wasiir liiska xildhibaanada aad dawladda soo saartay qolyihii mucaaradka ana liis bay ka soo garab saareen, marka xaaladaasi sidee bay u dhacaysaa, maxaa nooga sheegi kartaa? qolyihii musharaxiinta isku sheegay aan qaadanin waraaqihii aqoonsiga musharaxiinta way joogaan, waa mid kale oo meesha ka jira, laakiin waxaada nabadgelyo oo hadda ayaan ma jiro, laakiin way barbar socdaan, way socdaan. dowladda federaalka ayaana wada hawshaasi. waxa dhibaataana anagu hadda uma aan kalamaana kulmin dhibka ay ku dhex wadaan bulshada iyo khallaasaha ay gelinayaan cid waliba way ujeedaa. soomaalida oo dhan way aragtaa, reer Jubbaland way arkaan, dad looma dhigin hawsha ayaa la wataa. waxaada weyn oo sida loo sheegayo waana ma jiro, waa qolad ku xaraysan oo markay maqlaan waxaasaan sameeyana wixii oo kala sameynaya magacyo qorqoranaya marka la yidhaahdo saaka baaqoo dhaafnay ayaga tahay dad maqan iyo dad jooga waxbaan daalinayna. marka waa uun fawdo loogu talagalay in electionka lagu sameeyo Jubbaland xilliga doorashada ay ku jirto, waana la fahmay, waxa dhagna looma dhigin, ummaduna ka wada waxaysaa. marka waxaad leedahay wax dhibaato iyo wax damage ay u geysan karto dawladdan cusub ma jirto, doorashaduna sideeday u soconaysaa? كل فرقات الدولة الفدرالية هو الوضع وحي كمان الإيمان بوصله وصله، لكن فكرتي حاجة كي من دولة شدينا عن جميل أو إلكشن كيا وراقي قاعدة ناشن الجوزة أو ورجال صوب القرى أو سيمتي وطاو حمكين ويجلا ويجوان، لكن واحد بساو سيبورنا وين وعد خلق الجميل يا جماعة حالا الكتير شيء نجيل عليه أنت وح كلام الإيمان يعني هذا واحد بعطى كلام نقول ولي أو نقول الحماة وحنا لقوا صغيرنا أنا واحد اللي يتكلم kuwaasi waa kuwii gudaha ku jira dawladda dhexe. haddii ayna ayidin baarlamaankan aad soo dooratay dawladda Axmed Madoobe ay dooratay, maxaa dhibaato oo ka soo gaari karaa Jubbaland? ونقلت كل وحي ولين فرد صدري ولكن حيركي دستورك قرن كلية كي Jubbaland بيوقع سنين دور كمراعة لو رشلا إنه ضلوا كذا لكن كان شروط ضلوا نمو ضيحي ما لا إلا كتنا زميلنا ولي ولي international community Somalia
jooga Soomaaliya arrimaheeda la socdana way ka warayaan waxaa loo yimid wufuud kala duwan oo qaadan soo le qaadani kale wayna darteen xaaladda doorashada waxoo dhan way la kulmeen intahoodana way ku arkeen waxa meesha ka jira marka wax shaahid wax hadda ay hadda u dhigi karaan iyo midna maaha waxaa ugu muhiimsan in doorashada xor iyo xalaal ku dhac wayna ku socotaa dadkii iyo dadweynuhuna way ku qanacsan yihiin salaadiinta Jubbaland way ku qanacsan tahay dadweynuhu way ku qanacsan yihiin international community way ku qanacsan yihiin haddii ay rabaan iyagu inay diyaaradihii ay samayn jireen ay sameeyaan oo kama suurtagelayso halkaan waan gartay jaal wasiir adigoo mahadsan bal waxaad nooga warantaa odayaasha xagga odayaasha oo iyagu laftigooda ay cabasho badan ka yeerayso iyaga laftigeeda xageed yani wax marinaysaan salaadiinta wadadka TViyada dhan bay ka hadleen salaadiintii Jubbaland hore soo dhisay kuwii 135 waagii ka qayb galay soo dhisidii dowladii Jubbaland dhinaceeda waxaa malaynayaa dabadeeyo ayaa kali jiray 130 laakiin laba jeer oo baarlamaanku markii labaad la dhiso kuwii soo dhisay hore iyo kuwa ka tirsanaa 99 halkan jooga waa hal qof iyo laba qof waxa hadda ka maqan oo aad garanaysaan labadooda magacyadooda aad garanaysaan meelihii ay ku sugnaayeen waxa kalena waa wax loo soo qoray oo la socda waxaa hadda khilaafka oo xagga ka taaganna ma jiro iyagana way la kulmeen wayna u sheegeen iyagoo dhan bay u sheegeen in ay tiradoodii wada dhan tahay hal meel isku raacsan yihiin dowladda maxaa la yidhahdaa guddiga doorashada ee madaxa banaanna ay saacsan yihiin ay ku qanacsan yihiin iyaga TViyadii weeyaan meel walbaba ka sheegay haddana maanta daaftii way ka hadleen salaadiintu baritaankii qayb ay ka ahaayeen marka taa waxaa dadka saaran maaha wax baaritaankeeda xagga haddaynu u leexano xagga ciidamada ma wax istaanbay aad ku jirtiin waxaa la leeyahay labada ciidan baa is hortaaganoo Jubbaland iyo dowladii baa wax ka soo diyaarinaysa olole soo diyaarinaysa marka ma wax cabsi ah ka jiro ma ciidamada is hortaagan ما واحد أيضا هو صارت مثل الربع أيضا ماشى مثل فعل أيضا بتشوفه أيضا كدراويش كجبلان أيضا كبوليس كجبلان كنا بسيطة كلنا وأيضا دولة أيضا أيضا دولة أوسطان معها وحسنا هذا مثله جعلت أمن وناءات أيوة في عين أيضا ما بسيطة ولا كذي على دليل الأمن على صبح جبلان هو اللي الأمن جديد صمت كان أمن بالنسبة والضوء لا رسول تجيب أنا كسرت واحدة ومشي marka hadda saas arinta sida hadda u wadaan bad yani u wadeysaan oo saasad ku dhameeynaysan insha Allah saasan rajeenayna ku dhameeyno waqtiga fogay tilay jaal wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wareysiga aan kula yeeshay anigoo ah Hinda Maqtal Daahir oo hadlaya telefishinka caalamiga ah ee SNN ka baxa magaalooyinka mataanaha Minnesota iyo Minneapolis waxaan rajeynayaa wareysigan lamida inaynu insha Allah hawada ku kulanno إن شاء الله إذا ما صنتها يجي دار TV كمان بطلت شغلان والسلامة يا حالة أهل بدنتها من الجليل وبدنتها وشو سيد الله كلا كلا وصعطها الحمد لله إله ومعاملة نوضنا إن شاء الله ونوضع معكم. عاد بعض ما هتصنتها جمال وسير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.